qaar ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Awdal ayaa ammaan u soo jeediyay qurbajooga gobolada Awdal iyo Salal oo maalmihii ugu dambeeyay ay fartu ku godnayd isla markaana ay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo siyaasi badan oo ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salal ay u soo jeedinayeen dhaleecooyin iyo eedo hor leh. si kastaba ha ahaatee dhalinyarta ku nool gobolada Awdal gaar ahaan caasimadiisa Boorama ayaa difaacay doorka ay qurbajooga reer Awdal ku leeyihiin horumarka gobolka ee dhinacyada badan leh iyaga oo tusaale u soo qaatay dhismaha jidka isku xidha Boorama iyo Dila kaasi oo ay wado hay'adda wadooyinka ee gobolada Awdal iyo Salal ee Asarda sida ay uga qayb qaataan qurbajooga reer Awdal. dhalinyartan oo fikirkooda cabiraya ayaa waxa ay yiraahdeen sida tan waxaan ahay dhalinyarada ku nool madoon wana tucad in ay tahay isha kaliyaata ee gobolkan dhaqaalihiisu meesha uu ka soo gala ay tahay qurbajooga ay tahay isla markaana ay yihiin kaalin lixaadle kaga jiraan horumarka gobolkan ha noqoto dhanka dhisida wadooyinka ha noqoto dhanka tacliinta dhanka caafimaadka dhammaanba ilaha dhaqaale ee gobolkani wuxuu aad ugu tiirsan yahay waxa weeyaan waa qurbajooga gobolku aad kaalin weyn bay qurbajooga kaga jirtaa taas marag madoona laakiin haddii waxaan talahaan u soo jeedin lahaa iyadoo ay qurbajoogu ay kaalinta inta leeg kaga jiraan horumarka gobolka haddana waxa jira qodobo qaar oo la ilaawi karin ama aan isha la dulmari karin oo ah website-da qaar dad qurbaha jooga ay soo qoraan oo markasta kala geeya dhalinyarada iyo siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda oo afkaaro kala duwan soo qora markaan waxaan talahaan u soo jeedin lahaa website-da qaar in ay ilaahay ka baqaan in dadka isku soo jiidaan dadka kala geeyaan maaha dadka gobolkan iyo gobolkan Salal ku nool gobolka Awdal iyo Salal ku nool waa dad wada dhashay dad kala dheer maaha waa dad meel ku wada nool waa dad magaalo kaliya ku wada nool waa dad khaasatan haddaan ka soo qaado dhalinyarada kale dhalinyaradu ma hadda kuwa siyaasi ay kala qaybiso waa kuwa isku soo galaas ahaan jiray kuwa isku soo xaafad ahaan jiray kuwa isku hadafa kuwa doonaya in magaaladooda iyo gobolkoodan ba ay ka dhigaan kuwa ugu horeeya Soomaaliland faa'iidada iyo faa'iido darrada ay qurbajoogu u leeyihiin dadweynaha degan waa Awdal Salal iyo Gabiley saddexda gobol run ahaantii anu xaggan ka taaganahay qayb weyn bay ka qaataan horumarka gobolka boqolkiiba 70 iyaga ayaa ummadan ku nool saddexdan gobol wax soo gaarsiiya oo dadku badanka waxay ku nool yihiin qurbaha waxyaabaha looga soo diray inta badan ay ku nool yihiin ha ahaato mishaarka haddaan dhinaca kale eegno xagga siyaasadana waxa weeyaan qurbajoogu saameyn badan bay ku leeyihiin oo siyaasad marka la galayo inta badan waxa u baahan dhaqaale u baahan dhaqaalahaas iyo talooyinkaasi waxay ka yimaadaan inta badan qurbajooga ka yimaadaan wayna ku maadsan yihiin haddaynu eegno xagga dib u dhiska gobolka Boorama waad aragtaan waxay ku kordhaysaa xawaare aad u weyn badanka xawaarahaas waxa saameyn ku leh ama keenay qurbajooga Awdal Salal iyo Gabiley ayaa saameyn ku leh marka waxa weeyaan xagga waxbarashada eegtana qof kasta oo wax baranaya boqolkiiba 90 حاولي كارهان حاجة جامعة أنت بدنا وحبيها خراشات كاس يفيدس وقرب جوجا ويا الحمد لله رب العالمين أنا جو مقعد هاي إنجنير عبد القادر علي بديه كانت ترسان أوركا إنجنير هذا اللي أساسي مدبل قبل هذا أودر يسأل مقعد سلايا قانو East Africa Model Engineers نحن هانتي سؤاشاس saameynta ay qurbajooga ku leeyihiin maaragtay dalka runtii shay walba waxa uu leeyahay positive iyo negative markaan eego fikir ahaan waxaan aaminsanahay saameynta dadka qurbajoogta ay ku leeyihiin dalku negative-kooga ayaa badan sababtoo ah waxay inta badan ay abuuraan amba ay keenaan kala geynta dadka ku wada dhaqan meel amba dalkooda jooga iyaga oo maaragtay keenaya maaragtay qabyaalad iyo waxyaabo fara badan halka iyaga wax qabadkoogu maaragtay adana aad u hooseeyo runtan waxaan oran lahaa saameyntoodu aad bay saameyn wanaagsan
boqolkiiba 40 bay ku leeyihiin laakiin boqolkiiba 60 waa saameyn aan wanaagsaneyn qurba jooga oo ah dadka had iyo jeer 90% wax ka qabta gobolada Awdal Salal iyo Gabiley waxaan aad ugu mahadnaqayaa kaalintooda inay si fiican uga qayb qaataan sida xagga ay ka wadaan ay ka sii wadi doonaan sababtoo ah waa dadka quraha ee maanta la oran karo wax weyn bay ka bedeleen haday noqoto xagga maxay ahaydeen waxbarashada haday noqoto xagga horumarka haday noqoto xagga caafimaadka intaaba waxay yihiin dad aad maaragtay ugu wax qabad leh oo aad loo arkay muuqda xag ficil iyo xag maaragtay oraa iyo xag aragtiba waxaan oran karaa markaa dadka qurba joog waxa ay boqolkiiba 90 aad ugu mahadsan yihiin wax qabadkooga kaasoo ah mid la taaban karo oo aad wax muuqda uga gobolada Awdal iyo Gabiley iyo Salal sidaa daraadeed anu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka wax qabadkooga ka muujiyay xag gacmeed xag ficil iyo xag oraahba waan aad baan u mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خضر محمد حسن حديقة نيوز مقالة بورما